guddiga baarista xusuuqa ayaa maanta aas qaran u sameeyay 8 marxuum oo ku geeriyooday dagaalkii ay dawladda Siyaad Barre ay u geysatay shacabka Soomaaliland. 8 marxuum ayaa maanta lagu aasay koonfurta magaalada Hargeysa. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga baarista xusuuqa, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga xakinka talada dalka ee Kulmiye, agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxayna Ilaahay uga baryeen in uu jannatul firdaws ka waraabiyo ehladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen 8 marxuum. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaynu halkan isugu nimid aaska aynu ku duugaynay dad 8 oo Soomaaliland darisa oo gacan ka xaqdarani ku dishay 88 magaalada Arabsiyo 88 magaalada Arabsiyo oo laga soo qofay halkii lagu duugay markii hore oo si ixtiraam daran loogu guray ka bacdina imaka hadii la yiraahdo kolkii ay eegeen dhakhtaradii baarayay dadku sida u dhinteen kolkii ay ka dhameysteen ayaa imaka hadii la yiraahdo sidii ixtiraamka lahayd ee islaamiga ahayd loogu aasayaa xabaalaha qaranka halka looga sameeyay ee ku taala masallaha bariga. ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo dadka muslimiinta marxuumiinta maanta aynu halkan ku aasayno gacanta ka xaqdaran ay dishay iyagoo wax dambiyaha ay geysteen jirin. waxaan marka hore ka tacsiyadeynayaa ehelkii qaraabadii ay ka shahiideen marxuumiinta imika aynu halkan ku aasayno ayaan darana ay sii tahay qoys qura oo halkaa maxaan ku dhahdaa lagu xasuuqay 88 waxaan ay arintan in tusaysaa xabaalaha kale imika dhinacan kale ka xigaana ay yihiin xabaala wadareedyo iyaga oo kala ah oo xilliga dawladii dalka maamulaysa ee kala taliska ah ay dadka si naxariis la'aan ay u xasuuqdeen meelo badan oo kalena way ka buuxaan. dadka marxuumiinta ah gacanta ka xaq daran la dishay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala samiriye ma ka sii runtii waa laba geeriyood oo maalintii hore geeri bay ahayd xilligii la xasuuqay, maantana geeridii waa dib ugu cusboonaatay. marka runtii waxaynu Ilaahay uga rajaynaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga meel yeelo oo jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waraabiyo. sida ay soo sheegeen labada mujaahid waxaad arkaysaa dee midhihii oo wixii tacaddigii laynagu sameeyey ee ina gaadhay, laakiin maanta alxamdulillah qarankeena waa inoo dhisan, midhihiina waan ka haysanaa, laakiin xanaftii innaga iyo Soomaaliyeena kala kaxaysay bay kow ka yihiin. maxkamadda Ilaahayna way ku argoosan doonaanoo rasuulkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii la dilay ee gacanta ka xaq darani dishay qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo halkaa kalarka laalaadinaya kii dilay. waa Cabdirasaaq Axmed Cabdiraxmaan, telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel, magaalada Hargeysa.